السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan idinka mahad celinayaa aqbalaad aad aqbasheen yeedhistan aan idin yeedhay oo ku wajahan aniga oo u istaagay ama doortay inaan ka qayb galo doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ay galayso sanadkan ugu soo socda 2021 waxaan marka isiri adiga oo u sharaxan dowladii Soomaaliya dadkii magaalada kula joogay asxaabta ahaa culamaa diinka lahaa odayaasha lahaa hogaamiyaashii bulshada lahaa baac mushtarka lahaa adigoon u sheegin oo la tashan waa kugu falxumo inay media ka arkaan maanta waxaan idinku yeedhay idinkoo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan inaad ila ogaataan inaan ahay musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in ilaa maalintii dowladda Soomaaliya ay burburtay January 1991 inaan dadka Soomaaliyeed haday odayaal yihiin haday dhalinyaro yihiin haday haween yihiin haday waxgarad yihiin intaba inay ka daalin in dib loo soo celiyo sumcaddii sharaftii karaamadii iyo dowladnimadii Soomaaliya waxa loo soo galay geedi dheer qori isu dhiiba waxa lagu bilaabay markii ugu horeysay in laga dhigo Djibouti waa tii la isugu tagay waa tii lagu soo doortay madaxweynihii koowaad Ali Mahdi kadibna waxa ku xigay dowladii labaad ee la doortay waxay ahayd dowladii carta lagu soo dhisay ee madaxweynaha ka soo noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan kadib Cabdullaahi Yuusuf ayaa isna madaxweynaha ku xigay waxa ku xigay isaguna Sheekh Shariif waxa ku xigay Xasan Sheekh Maxamuud waxa hadda ugu dambeeyay oo ku fadhiya kursiga madaxweynenimada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaasoo madaxweyne isu soo bedelay madaxtinimada iyo hoggaanka dalka Soomaaliya intuba waxbay qabteen ma oran karno marka la eego xaaladda dalku uu ku sugan yahay haday tahay mid abni mid dhaqaale iyo mid bulshada lama oran karo waxa ma qaban marka wax la kala reexanayo xawaa lays kursiga la isku yar challenge garaynayo waa la seeday laakiin anigu waxaan qabaa madaxweynayaashaas iyo prime ministeradii la shaqeynayay iyo dowladihii kala duwanaa ay soo bedelay meel fiican bay dalka soo gaarsiiyeen waxaan markaan ugu baahnay inaan meesha ka sii qaado aniga oo khibrad u leh hogaaminta bulshada oo yaraantaydii aan ka soo bilaabay aan ka mid ahaa ururkii la odhan jiray ubaxa kacanka October oo aan ku xijisiyay aan ka mid ahaa naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya tenniska la odhan jiray anigoo u soo ciyaaray wakaaladda la odhan jiray Fiyaad ama Wagad markii dambena ku wareegay markii wakaaladda la baabiyay wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya kadib markii aan dhamaystay jaamacaddii heerka koowaad waxaan markaa ka noqday macallin dugsigii sare ee farsamada gacanta ee Xamar 2 sano ayaan halka macallin ka ahaa kadibna waxaan imid dalkan Canada ayaan ku imi anigoo ku imi qaab qaxootiya halkaas aan ka soo bilaabay waxbarashadeedii heerka labaad waxaan ka qaatay jaamacadda Ottawa University degree-ga labaad ee masterka aniga oo takhasuskaygu uu yahay waxa la yiraahdaa educational psychology ama macallinimada inta kadib waxaan u shaqeynay heerar kala duwan baan ka soo qabtay dowladda federaalka ee Canada wasaaradda caafimaadka waan soo shaqeeyay waxaan soo shaqeeyay Canada School of Public Service schoolka lagu tababaro shaqaalaha dowladda kadib intii dambe waxaan ka shaqeynay hay'adan hadda aan madaxda ka ahay Somali Canadian Education Rural Development Organization oo iskarda loo yaqaano ama hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga waxaan markaa idinka rabaa maadaama aad tihiin labeentii magaalada taageero buuxda inaad siisaan ugu garab siisaan waana dalkii one man one vote kama jiro laakiin xildhibaano ayaa la dooran doonaa
29 xildhibaana idinkoo ka soo kala jeeda gobolada iyo degmooyinka laga soo xilayo xildhibaanada waxaan rabaa inaad igu siisaan gacan sidii aan dalkan uga saari lahaa halkaana uga sii wadi lahaa ajandaha iga dambeeya sidaad ku aragtaan barnaamijkaygu ama tubta aan doonayo dalka inaan ku hogaamiyo number 1 waa dib u heshiisiin numberka labaad waxa weeye waxa la yiraahdaa dib u dejin haddii la heshiiyo dib u dejin baa imanaysa waxaad ogtihiin weli dadku barakac buu ku maqan yahay dad baan guryahoodii weli ku jirin waa la kala qaxay marka waxaynu u baahanahay markaynu heshiino dib u dejin baynu u baahan markaynu dib u dejinta ka soo aynu marka dadku ay dib ugu noqdaan guryahoodii la isdhex galo beerahoodii ay ku noqdaan goboladoodii ku noqdaan waxay imanaysaa dawlad wadaag marka in la wadaago marka dawladii si siman oo cadaalada oo uu gaaro heer degmo heer gobol heer tuulo ilaa heer federaal waxa ku xiga marka daryeel bulsho hadii heshiis la yahay oo la isdhex galo oo dawladda la wadaago bulshadu markaas ay daryeel helayso bulshadu mar haday daryeel hesho dalku marka waa midoobay dal midaysan aynu noqonayno dalku ma midoobi karo ilaa uu dalku uu dib u heshiisiin galo oo la heshiiyo waxyaalaha ugu meelaha ugu gobolada ugu mudan ee hadda dib u heshiisiinta u baahan waxa ka mid ah gobolada waqooyi tusaale gobolada waqooyi ayaa u baahan oo ku kala duwan oo dhex yaala fikir siyaasadeed oo ah mid gooni isu taag ah iyo mid aaminsan midnimada dalka Soomaaliya marka maadaama aan ka soo jeedo anigu gobolada waqooyi waxaan xoog saarayaa oo idin ballan qaadayaa in mudnaanta koowaad inaan siiyo inaan ku soo dabaalo gobolada waqooyi qaarkood gaar ahaan maamulka Soomaaliland madaxdooda inay miiska wada hadalka yimaadaan oo ay dalkooda iyo dadkooda ku soo biiraan taas aniga priority ah mudnaanta koowaad taas siinay waxaan qabaa 20 sanadood ee Soomaaliya dib u heshiisiinta iyo madaxdu isu bedelaysay marna inaan la gaarin boogta ama meesha ay u dhimanayso midnimada Soomaaliya waxaan qabaa taana inay ku lug leeyihiin dawladda shisheeye iyo dad Soomaaliyeed oo ay ku shaqeystaan oo dana gaar ah dalku ilaa uu yeesho dastuur ka dhaxeeya oo lagu wada qanacsan yahay ilaa meesha la yiraahdo Raas Kambeoni ilaa law yacdo dalku anigu waxaan qabaa inuusan gali karin doorasho cod iyo qof taasana aaminsanahay waxayna ku xiran tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo doorasho qof iyo coda in la keeno maamulka Soomaaliland miiska wada hadalka dalkan ay ku soo biiraan taana waxa weeye dawladii hore waxyaalaha meelaha ay u mareen iyo dariiq ay u mareen wuxuu ahaa dariiq aad u khaldan waayo waxa wada hadlayay sidii laba dawladood yaa waxa wada hadlayay dad ka socda ama mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka dhexe oo ay ku jirin dadka aaminsan fikirka midnimada ummadda Soomaaliyeed ee xilalka ka haya dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay saarkayay dad fikirkoodu uu kala duwan yahay laakiin meelo kala duwan kala nool taasaan soo afjaraya waxa diil aan ku guuleysto waxa wada hadli doona oo soo heshiin doona oo miiska wada hadalka isugu iman doona oo waxay rabaan ku heshiinaya ama ku kala tagaya waa dadka ku nool gobolada waqooyi oo hadda fikirkoodu uu aad u kala duwan yahay waxaan kale oo xoog saari doona gobolada Jubbooyinka oo iyaga laftigoodu isjiid siyaasadeed ka bixila ilaa 1991 sida dagaalku u dhacay ilaa hadeer in badan la isku dayay maamul hadeer waa ka jira laakiin waad la socotaan maamulka laftigiisa maamul degan maaha qasbada ma ka jira iyadana waxaan ku bixin doonaa juhdi fara badan sababta labada meelood aan nooradka iyo sawdka aan soo qaatay waxa weeye waxay ku yaalaan labada gobolba laba meelood oo halbowlo ah oo muhiim ah oo dalka Soomaaliya laga kala goyn karo maadaama aynu leenahay cadow badan oo shisheeye waxaan kaloo ka marnayn in haddii aan madaxweyne noqdo si nabadgelyo ku jirto oo is afgarad ku jiro inaan furi doono wada hadal
wadamada dariska ah sida dalka Kenya iyo dalka Ethiopia anigoo kala hadli doona aayaha iyo future-ka dalalka ama gobolada ay gacanta ku hayaan labada dawladood si hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhinaca siyaasadda iyo hadday noqoto ay ka talintooda future-ka faylka waxaan umanayaa waa la xiray laakiin anigu maadaama xidigtaas shanta gees ay tahay waxaan rajaynayaa oo qorshaha iigu jira inaan si nabadgelyo aan uga hadli doono haddii alla ka dhigo baad mahadsantihiin kasoo qaybgalka kolley waa wada fadhiisan doonaa waa wada sii sheekaysan doonaa taladiinaan u baahanahay taageeradiinaan u baahanahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaqso loogu kala gartaa sideeba dhaqso loogu kala gartaa